السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قارتكم قاعدة مدن ملك سوتوكتان سكستو مقالك دين سو قاري بهالك دقة داون سنة وجنك شاشك ولا شاشك كسر وهذا برنامج هذا هين تبل شو عاود كوجايا لأن يرد مقالة بور موقعات على الصومالية يقول تركي الصومالي لأنه حنا سوي نقول تاجر أما قان كاس كنت تاجر ألفنا نمعان هلا وهاك صاحب بورما وحاد لو هذا الحياة بنان بيحي الشلي كدعاي مقالة سي بورما إلا أي حد حالد واقع عصن تاك كدي مركي ميد كميدا بلاها دقا مقالة بورما عاصمة قبل كأودل وقاس كودا وروين وسوق جارو مقالة سي كدينا لو ديدين وسوق جارو كدينا سودو وينتي دتكم ماشي سوق صباحنا حد عادي إن دتك لو كل عري حبضنا نون القواس يريد عيد القصة لان وحنا شاقين وسن قبي هم بعجها سودي كريم intaas wixii ka dambeeyay waxa kacay dhalinyaro halkaas ku sugneed waxaayna waliba ay iska tuureen ama la arkay iyagoo macnaha muujinaya astaanta calanka Soomaaliya oo sheegeen inay taageersan yihiin Soomaaliyeed isla markaana ay Somaliland gabi ahaanba ay duudubeen boonamana waxa ka areemisa Somaliland dabcan sida la socotaan intaas wixii ka dambeeyay dhalinyartaasi waxa bartiisa Facebook ku taageereen aan hilaac oo asagu boorama ka soo jeeda dhalinyarta boorama si weyn maskaxda geysta dabcan markii loo eego xilligii nimcaan hilaac oo hadda sanadihii 2018 haadan filaya oo ku laabtay boorama sidii loo soo dhaweeyay markii loo eego waxa uu taageero weyn ka haystaa dhalintaasi waxa uu sheegay in aysan sii jireen in bahdir dambe kaas uu ka waday in Somaliland dambe ka sii tali doon boorama isla markaana xaq uu soo dilacay waxa uu garab istaag weyn u muujiyay dhalinyartaasi sidoo kale waxa waraysi maanta uu siiyay saxaafadda maayarka magaalada boorama waxa uu sheegay in isagu uu joojiyay ogaaska amarkan oo lahayd imaatikiisu lama hor istaagin laakiin marxaladda uu ku soo beegay baa ahayd marxalad gobolka ama degmada dadka jooga ay afkaarta siyaasadeed ee xagga saamiyada iyo doorashooyinka ku kala afkaar duwan yihiin arintaas ayaana sidoo kale xiisad kala sii abuurtay iyadoo la islahaa tii shalay meeshida ay ku haka doontaa marka xaaladda boorama aad bay u kacsan tahay runtii waxaan ugu baaqay lahaa dhalinyarta halkaas ku sugan inay isdejiyaan oo ay dalkoodii dadkooda dhistaan sababtoo ah ninkii dhintay wadanka waxba kuma lahan wallahi waa runtiis wariyaahe marka idinkoo banaabax ama dhibaato geysan si xal ah u gaar hawshina aan dheelahay guud ahaan barnaamijkeeda talaynta caaw halka ay kaga yahay walaal ka shacshakooda la saayo maqalad